Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Soo noqod wanaagsan. Maanta waxaan leenahay cashirkeena dialogue ahaa. Waxaana maraynaa dialogue tobanaad ama wada sheekaysi tobanaad kaasoo ku saabsan shopping. Shopping waa la wada yaqaanaa, waa dukaamaysi. Ama ha noqdo dhar ama ha noqdo wax kale. So shopping mar haddaad maqasho waa dukaamaysi. So shoppingka marka maanta waxaa ku wada sheekaysanayo ama isku weydaarsanaya hadallada gabar la yiraahaa Muna iyo qofka meesha gadaya oo sales person la yiraahaa. Sales person waxaa la yiraahdaa qofka meesha jooga ama rag ah ama dumar ha ahaado. Okay? So sales person haddaad maqasho waa qofka iibiyaha dukaanka marka ayada jooga ee waxa iibiyo ama qofka wakiilka meesha ka ah ee yani sameynaya dalabaadka qofka inuu ka iibiyo. So qofkaana ku bilaabay nin inaga wuxuu yahay ma kala sheegayno. Marka qofkaana ku bilaabay sales person wuxuu yiri can I help you marka dukaanka soo gasho qofka uu kursigu kaaga soo istaagay wuxuu leeyahay walaal soo dhaw maxaan ka caawiyaa marka qofkan wuxuu yiri sales person ka ha can I help you ma ku caawin karaa micnaheeda dukaanka soo gasho wax indhaynayso qofka ma ku caawin karaa uu ku dhahayaa qasab can I help you ma ku caawin karaa Muna waxay tiri yes ha dabcan I am looking for a sweater waxaan raadinayaa sweater vocabulary hore waan ku soo qaadanay sweater waxaa la dhahaa finaanad dhaxameed so waxay tiri I am looking for a sweater waxaan raadinayaa finaanad dhaxameed in a size medium taas oo ah sizekeeda uu yahay ama yani qiyaasteeda ay tahay medium aan iga weyneyn aan iga yareen aan cariirin igu ahayn medium macnaa waxaa la yidhaha sizeka la yidhaha m-ta dharka wuxuu kala baxaa s small ah l oo large ah XL, double X oo extra large, double extra large iyo medium saas uu kala baxaya. So medium hadda maqasho waa M size-ka M ta leeyahay. So waxay tiri Muna, yes, I am looking for a sweater. Waxaan raadinayaa ama aan daydayaa sweater ama finaanad dhaxameed. Kaas oo size-keedu uu yahay dhexdhexaad medium. Sales person wuxuu yiri let's see. Bal aan aragno waa lagu faafay dukaanka gudaha loo galay. Miduu soo qabtay wuxuu yiri qofka ayadaha Here is a nice white one. Halkani waxaan ku hayaa mid wanaagsan oo cadaan ah. Mid cadaan ah oo wanaagsan. What do you think? Maxay kula tahay yiri markuu u soo taagay war mid cad baan arkay sidee kula tahay ila fiiray camal. Then Muna waxay tiri I think I'll rather have it in blue. Tan waxaan jeclaan lahayd tiri ama niidayda ila tahay in ayada blue aan heli karo. Macnaha cadaan uu soo qabtay ayada laakiin waxay tiri I think I'll rather have it in blue middan ayada blue ayaa ugu wanaagsan then the salesman said okay waayahay here is a blue one macnaha darsinkii uu kasoo dulqaaday wuxuu yidhi here is a blue one waa tanaha mid blue ah in a medium taasoo weliba medium ama m ama dhexaad ah would you like to try it on would you like ma jeceshahay ama ma jeclaan lahayd inaad isku daydo try it on waxaa la dhahaa gasho ee isku tijaabi ama isku jimee try it on then Muna waxay tiri okay kadib waxay tiri yes ha I love it waan jeclaan lahaa it fits perfectly waxay ila egtahay si wanaagsan fit waxaa la yidhahaa shayga qofka markuu la egyahay oo fit uu ku yahay okay una ka weynen una ka yareen jinkiis uu yahay so perfectly it fits perfectly si wanaagsan ayay ila egtahay how much is is it waa imise iibkeeda weydiinaysa waa finaanadii buluuga ahayd ee lasoo helay then sales person wuxuu yidhi it is $50 waa $50 laakiin wuxuu sii raacay wuxuu yidhi it will be $53 with tax laakiin waxay noqonaysaa uu yidhi $53 markaan ku dara canshuurta ama markii la canshuuro wadamada kale waxaa lagu yaqaanaa hadda Soomaaliya kumaana arkin in laga canshuuro dukaanka laakiin wadamada kale waxay marayaan wax la yiraahdo VAT okay ama value added tax waxa la VAT aku qor VAT oo calaamad gaduud ah gees ugu qoran shay walba taasoo micnaheedu ay tahay markii $3 ama $5 aad ku iibsato $1 bar $1 canshuur aad korayso so meesha lagaaga qaadaya so it will be 53 with tax markii la canshuuro kadib then Muna waxay tiri perfect way wanaagsan tahay good amal waay I'll take it waan qaadanayaa micnaha qiimihii marka ta canshuurta lagu daray way ku qanacsan tahay la ekaashadana way ku qanacsan tahay hal mar aan dul maraynaa intaan soo saarin ama aan u gudgalin vocabulary then salesperson dialogue about shopping salesperson how can I help you Muna yes I am looking for a sweater in a size medium salesperson let's see
Here is a nice white one. What do you think? Then Mona said, I think I'll rather have it in blue. Then the salesperson talked and said, okay, here is a blue in a medium. Would you like to try it on? Mona said, okay, yes, I love it. It fits perfectly. How much is it? Then the salesperson said, it is 50 USD, I mean $50. It will be 53 with tax. Perfect. I'll take it. Okay, vocabulary ku jiro maanta maxaa ka mid ah? Help. Help waa caawin. Looking waa raadin. Sweater waa finaanad axmeed. Size waa yani sarafta ama shayga la ekaanshihiisa ama dhinaciisa saraftiisa. Medium waa dhexaad. waxaa kale ku jiro perfectly. Fits waxa waaye la ekaasho. Fit ama kujin ah. Perfectly si wanaagsan. Tax canshuur. Perfect wax wanaagsan ama perfect yani shay qofku ku qanacsan yahay. So halkaasaan kusoo koobaynaa dialogeeni tobanaad ee ku saabsanaa shoppingka. haddaad ka heshay fadlan like saar siina share garee si dad badan u gaaro loogana faa'iidaysto. adigana haddii tahay marka koowaad aad soo booqata fadlan waxaan kaa codsanayaa inaadan subscribe-ka naga ilaawin si anagana dhiirigelin nagu noqoto. tani kulantada waxay salax aniga kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.